gudoomiyaha gobolka Nowdal Cabdo Axmed Aayar ayaa maanta waxa uu ugu mahad celiyay bulshada ku dhaqan gobolka Nowdal sidii weyneed oo u xuseen munaasabadii 22 sano guuradii ka soo wareegtay gooni-sutaaga Soomaaliland ee 18 May wuxuuna bulshada ku amaanay doorkii ay ka qaateen xuska munaasabadaasi oo tilmaamay inuu gobolka Nowdal uu noqday gobolkii kaalintii koowaad ka galay xuska munaasabada 18 May ee sanadan ka dhacday gobolkan degmooyinka kala duwan ee gobolka oo dhan iyo magaalooyinka hoos yimaadaba uu ka dhacay sida degmada Boorama oo magaalo madaxdii gobolka ah Baki Lughaya Boon Qolujeed Dila Iranka Garbada magaalo cad iyo dhammaan tuulooyinka hoos yimaado oo dhan ayaa dabaaldega runtii si wadaniyada oo qiiro leh وحماسات له وقروح بدن bulshadu ay ugu dabaaldegtay 18 May waxaana daba fursadan jecelahay inaan uga mahad celiyo ida la cidii ka qayb qaadatay oo ay ugu horeyso ganacsatada gobolka ganacsatada khaasatan magaalada Boorama culimaadudiinki salaadiintii ururada haweenka ururada dhalinyarada ururada bulshada bahda saxaafada ciidamada qaranka noocyadooda kala duwan kooxaha fanka iyo hidaaya dhaqanka iyo dhammaan bulshada reer Awdal oo ka wada qayb qaadatay sidoo kale maayarka magaalada Boorama Saleeman Xasan Xadi ayaa isaguna bulshada ku dhaqan gudaha Boorama ugu mahad celiyay sida ay dawladda hoose ugu la shaqeeyeen qabanqaabadii xuskii munaasabadii 18 May ee Boorama ka dhacday waxaana bulshada ku amaanay sida ay u garab istaageen dawladda hoose oo aan doonayaa inaan maanta halkan uga mahadnaqo dhammaan bulshada reer Boorama ee nagala qayb qaatay habsami socodkii ay u qabsoontay hawlgalkii baaxadda lahaa ee May kaasoo sida maanta la waqirayo ay noqotay xafladii ugu weyneed ugu qurux badnayd ugu qiimaha badnayd xuso May ee ka dhacda degmada Boorama gaar ahaan ganacsatada reer Boorama ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa kaalinta lixaad kale ee ay ka qaateen in qarsoomidii May ay sida qurux badan ay u qarsoontay wada arkayseen qodbadana waa ka muuqatay qaabka u dhacday runtii in la noo qiray waxaan ahayd arrin ganacsatadu kaalintii koowaad ay qaateen sababtan lagu xusaya 22 sano guuradii ka soo wareegtay gooni-sutaaga Soomaaliland oo ka dhacday 4 degmo oo ka kooban tahay guud ahaan gobolka Nowdal waxay noqotay tii ugu bulshada badneed taariikhda inta la xasuusan yahay oo ka soo qayb galaan kumanaan dadweynaha ku nool gobolka Nowdal. Cabdi Fataax Axmed, Hadwanaag News, magaalada Boorama.